السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. in badan oo ragga ka mid ah gaar ahaan xilliga ay ku jiraan dhallinyaranimada waxa ay ku mashquulsan yihiin siday u soo jiidan lahaayeen indhaha hablaha gayaankooda ah, balse dooqa hablaha inaad soo afduubatahay ma aha mid sahlan. wixiise loo taag waayaba looma tab waaye. ma ogtahay inay jiraan taba badan oo kusoo xirigelin karto gabdhaha kuna qancin karto adigoon hal eray odhanin. waxaa jira xeelado badan oo kaa dhigi kara haldoorka ama halyeyga ay gabadh walibaaba ka baadho gayaankeeda kuna riyooto. dabina aad si fudud ugu gaadhsan karto gabadha ruuxaysa laabtaada adigoon hees u qaadin geeraara u xirinin oo tobankan qodob oo noqo qof qanciya gabadh walbaba qooraansiga u horeeya. waxaa xusid mudan inay luqadda jasadku tahay mid muhiim ah, lagana akhrisan karo qofka shakhsiyadiisa, hanaanka noloshiisa iyo habka uu fikrayo, isagoo gudbinaya qofka kale xogtaada, isagoo si fudud uga akhrisan kara laalaabyada wigaaga, sida inaad tahay ruux isku kalsoon iyo in kale. tusaale ahaan, markaad dhabarka toosiso adoo dhabankaaga kor u qaadaya waa astaan muujinaysa inaad tahay shakhsi isku kalsoon, waana nooca ay gabdho badani la dhacaan kana helaan ay baadi koobayaan. dhaqdhaqaaqa jidhkaaga iyo luqadda jasadkaaga ayaa waxay muhiim u tahay shakhsiga kale, waxayna kaa gudbinaysaa warbixin dhammaystiran oo tilmaamaysa shakhsiyadaada, sida inaad tahay shakhsi isku kalsoon iyo in kale. dhaqdhaqaaqa badan iyo degdega ayaa ah arrimo laga dheehan karo kalsooni darro iyo fudayd, sidaa darteed isku day inaad tartiib u socoto, dhaqdhaqaaqaagana ha noqdo mid isu miisaaman oo kantaroolan. u muuqo shakhsi deganaansho ku dheehan yahay, dabacsan oo nafis ah, waana astaamaha soo rita dooqa gabdhaha. gabdho badanna ay la dhacaan sida la sheegay. ku dadaal nadaafadda. waxaa xaqiiqa ah in nadaafadu lagama maarmaan u tahay qof walba, hadduu yahay rag iyo hadduu yahay dumarba. sidaa darteed ha hilmaamin inay dharkaagu nadiif ahaadaan mar walba, jirkaaguna nadiif ahaado, kaaguna u nadiif ahaado, si aanay kaaga dareemin gabadha aad jeceshahay wax nadaafad darra ah, taasoo keeni karta inay kaa qaadato fikrad qaldan. mar walba habeenkaaga si qurux badanna u shanlayso. isticmaal cadarada kuwa ugu udgoon. waxaa hubaal ah inaad saamayn ballaaran kaga tegi doonto maskaxda gabadha calmaday. xulashada labiska. waxaa lagama maarmaan ah haddaanad aqoon badan u lahayn xulashada labiska ugu habboon inaad dashato mid ka mid a saaxiibadaada kaaga khibrada roon labiska ama ciddii kale ee khibrad u leh staylka dharka. aan wax yar kaa tilmaamana iibso dharka aan sawirada lahayn. hadaad tahay dadka ku sawirta dharka ay xidhaan cid ay taageersan yihiin, ogow inaadan raali gelinaynin gabdhaha. ha ahaada dharkaagu mid kugu saljaran kuna habboon dharkaaga iyo ballacaaga, dhanana aan kaaga badnayn, sababtoo ah gabdhuhu ma jecla dharka baahsan ee waaweyn ee lagu dhexdhaco. inaad noqoto ruux soo jiidasho leh oo ka dhex muuqda waxay u baahan tahay karti iyo dadaal dheeraad ah. waxaana kaa dhigi kara mid maamuus gaara dhex leh inaad la timaado waxyaabo aad la dheer tahay asxaabta kale. markaad rabto inaad soo jiidato dareenka dadka, isku day firfircooni dheeraad ah inaad la timaado, waana inaad ahaato ruux furfuran oo firfircoon, kaftan badan, qosol badan oo ilaaq badan. isboortiga. inaad si joogto ah u samayso isboortiga waa lagama maarmaan, maxaa yeelay rag iyo dumarba dadku waxa ay jecel yihiin shakhsiga adag ee jidhkiisu dhisan yahay. soo bandhig hibooyinkaaga. ruux walba waxa uu leeyahay hibooyin gaara oo ilaahay siiyey. farsamooyinkaaga iyo hal abuurkaaga iyo hibooyinka kuu gaarka ah soo bandhig oo la wadaag asxaabtaada. taasi waxay maadaama ay dumarku jecel yihiin shakhsiga ka dhex soocan asxaabtiisa. waxna la dheer dhoolla cadaynta joogtada ah. dhoolla cadee oo muuji dareen farxadeed, dadkana toos wejigooda u fiiri. waxay caddeeyeen aqoon-yahanada ku takhasusay cilmiga nafsigu inuu ninka dhoolla cadaynta badani saamayn badan ku leeyahay gabdhaha, waxayna uga dhigan tahay baaq dabacsan oo soo dhaweynaya iyo soo dhaweyn gacmo furana. iska dhowr inaad ku talax tagto ama fudayd kaa yimaado marka aad qaadayso tallaabooyinkan. mashquul ahow. waxaa wanaagsan inaad u muuqato ruux dadaal badan oo fiiro dheer, kaadsiinyo badan, mar walbana ku mashquulsan howlihiisa. haweenku badi waxa ay jecel yihiin shakhsiga inuu yahay ruux go-aan leh. haweenku waxa ay jecel yihiin ninku inuu yahay mar walba ruux go-aan adag leh. hadday jirto gabar foofka kaa jiidhay, sheekada u jilicdaa tiraadana afku juuqda qabo, mar walba ku noqnoqo meelaha ay joogto. waxay dumarku u badan yihiin dhinaca ruuxa muuqiisu